بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما سنياي مدحوينه الشيخ حسن الشيخ آدم انت اخيارتي انت كهذا شيء وقرن كرنا حنونك iyo maxaan ku raad tabashada iyo waxa dadku ay sheeganayaan wadaxda markaas lagu dhaganaa muuqata laakiin marka qaarkood wax ka weynaa haysta waxa soo dhan waxa uu asala dawladnimada dalka oo hagaagta xaq ku jiray xal oo juz'i ah oo meel gaar iyo deegaan gooni ah bas oo heli karo inay dalkan ka jiraan u maleynaayo Soomaaliyana horaan u sheegnay dhowr ma kala guuleysan karno ama wada guuleysanayna ama waa guul dareysanayna dhaxlayna waxaan isku qabno laakiin xalka dhabta ah wuxuu naga jiraa dawladnimadaasi heer federaal ha ahaato ama heer dawlad goboleed ha ahaato ama heer deegaan ha ahaato degmada ba iyo degmada ta iyo degmada jaxmid ahaanaysa dawladnimada inaan xoojino ayaa dawladnimadu ay wanaag naga jiraan laba arrimood mid waa midda heshiiska maanta halkan laga sheegay heshiiskan sheegistiisa iyo saxiixidiisa iyo isu imaatankiisa maanta ugu horeysay ma aha horaa looga soo hadlay loogu soo heshiiyey lagu soo ballamay waxaa meesha inaga laadahay waxa waaye dhaqangelintiisa waay maanta waxaan isugu nimid rabna boorka in laga jafo oo dib loo dhaqaajiyo waxa waaye heshiiskaas akhyaartii odayaashii beelahaasi ay u arkeen xalki inuu yahay dhaqangelintiisii waay waxaan rabaa marka labadaas beelood iyo odayaashoodii waa heshiiyeen waa dhaqangeli waa heshiiskii ayagaa ka mas-uula dawladdaa ka mas-uula ciddi doontaa la dhaho laakiin heshiiskii waa dhaqangeli waaye waa soco waaye waa taabagal waa noqon waaye taas marka eedda qaybta ugu weyn hala qaateen dawladduna hala qaadato dawlad goboleedka maamulka koonfur galbeed hala qaato laakiin odayaasha dhaqanka ee beelaha ee gobolkan dhibka colaad kasta oo meel gobolkan degmo gobolkan kamida ka dhacdaa gobolkan dhan waa wada taabanay waa wada khusayni dhibka si uu u gaara waxaan rabnaa marka labadaas beelood ee soomaaliyeed odayaashooda dadaalka soo gala heshiiska soo gaaro waa maakeliya laakiin heshiiska dawladda dhaqan gelinaysa keliya wax jira maaha heshiiska dawladda ma dhaqan geli karto heshiiska dadka heshiinayaa laga rabaa waa nabadoodii waa heshiiskoodii waa noloshoodii kow horta ayaga inay dhaqan geliyaan inay go-aan noqdo dawladdu kaabinay gashaa federaalka waa kaalmayna dawlad goboleedku waa kaalmayna koonfur galbeed beelaha kale ee gobolka deganna waa kaalmaynaya markaasaa heshiiska sidaas ku dhaq laakiin inayna horkacaan oo heshiiska dhaqangelkiisa u istaagaan oo kii heshiiska ku dhagaayo ama qaribaayo ay wiilashooda ay qabtaan oo reerkii gooni maxaa dhexdiisa isqabto isceshado ayagaa laga rabaa kabacdi annaga aan muxuu ahay aan garab taaganahay xoog waay wiilkaana lagu qaldama hala qabto waa qabanayna odagaan adeerka xafidna wada aho balaayo ka taagnayo halala hadlo ama hala qabto waa qabanayna laakiin waxaan rabnaa in ay ayagu noqdaan kuwa go-aanka u gaaraayo dadkooda nabadiisa iyo nabad qaadashiisa nidaamka maanta aan qaadanay ee federalismka saasuu tilmaama haddii dawladda dhexe la rabo in ay inta timaado gobolka shabeellada hoose ay wax ka fuliso keligeed haddee awoodda dawladdaa qaadanay hadhow aniga muxuu ahay caliyaal iisoo magay jaamacaal iisoo magaca maane carri jibdeeda katiimin oo dawladda soo magacaabay laanna dawladda soomaaliya o dhan ay ka kooban tahay soomaaliya o dhan ay inta keeni soomaaliya o dhan ay xukunka u dhiibay soomaaliya o dhan ay asirka soo dhigay laakiin sida ugu waxaysan kartid maxay tahay inaa horta adiga midda aad leedahay aad qabat waxaan anaa iskala maliido xuquuq keligeed taagan ma jirto xuquuq kasta waajibaa la socda qof keligiis le xaq leh oo wax waajiba lagu leena dadka iyo deegaanka xuquuqay leeyihiin waana midda maanta aada looga dhawaajiyay xuquuqdaasi in badan oo kamid inay maqan tahay laakiin waajibaadaa barbar yaallo oo laga raba dadka xuquuqdaasi ay ka maqan tahay waajibaadkiina waa maqan yihiin xuquuqda dawladda federaalka waxay ka shaqaynaya dadkaana inay soo gaaraan meel xuquuqdoodii horta ay helaan waajibaadkii lagu lahayna ay gutaan ay bixiyaan laakiin waxaan rabnaa dadku inuu ogaado xuquuqda iyo waajibaadka waa isla darsocdaan waxaan rabnaa in maxaanku idhaahdaye
خلطات كل شيء أجرو أقل دولة الرالي كماها أنت سو جيران قبل كان نمدي أنت سو جيران حواي إذا بدي جوجي مركز الجوار أتقني أنت سوديين ولينا كما دالين أنت بعتذر تمشي كبحث وضد كان وحى حق أوليه أي هلام أو وحى واجب نظام الدولة لماذا وكلها لجهل أو نحن ذو إسكوليين أي كلا هلام وكشقين هنا آدي وحى مهم وحمد ما قبل كره قعمت ظاهرة واحد ظاهريا مال dadkeedu heshiis yahay dawladnimo ka dhaqan gali karta horumarku ka dhaqan gali kara khayrka iyo barwaaqada gobolkan oo qabo looga faa'iideysan kara aan aad u adkayna odayaasha dhaqanka hogaamiyayaasha beeraha deegaankan degan horta koow inay u midoobaan meeshii dhib ka jira in la damiyo dhibka hadda la sheegaya waa mid gaara deegaan gaara ku ah kaasa la damiyo waxaa kaloo rabaa odayaasha inaan u sheego 20 sano iyo burburkii wixii soo jiray oo dhan dhibaatadii dhacaysay hal subax ma ka daawoobi karno dad badan oo annaga naga mid hadda warka meeshaan aad looga hadlayay dad badan oo naga mid waxaa aad iyo aad xanuunkii la soo dhaafay sanooyinkii badnaa iyo midka maanta taagna aad u haay waa garan karnaa waa dareemi karnaa xusuusta murugada lahaa la yidhaha oo markaad xusuustaas aad soo xasuusataba aad cawada aadan seexanayn wixii dhacay 10 sano ka hor markaad soo xasuusata cawada hurdada ay kaa tegayso laakiin dhibka ay leedahay maxaa waa xusuustaas murugada berri iyo berri dambe iyo berri ku xig wixii wanaag oo qabsoomi lahaa kaa celinay ay kaa haynay soomaaliduna waaba tii ku maahmaahday xasuustaa ma xiriirso war shalayay nagu dhaganaanaynay la jiiday shalay wax xunaa dhacay dhibaa dhacay dilaa dhacay boobaa dhacay kufsiyaa dhacay dawladdii waxaydina waa la boobay wixii dadkana waa la boobay ciddii wax boobi kartaa wax boobtay maalintaas ay fursad u saamixaysa inay wax boobto maalinta dambana kii kale u saamixaysaa wax boobay waa run soomaaliya dhan waa ka dhacday meeshii khayr iyo wanaag yaalaana wax badan meeshii wax yaaliina wax badan oo la qaata laga helaa dalka gobolkan khayr badan ay yaallo marka dhibka gaaray waa ka xanuun badan yahay gobolada kale meel aan waxba oolin oo nin ushiisa garab ku saarto hal geela daba joogaa bas ay taalo maxaa laga qaadana bakaar laga qoto male geed cambaha oo laga maxaa bilqaysta male maxaan furaa yaanyo maxaa isbaaro loo dhisto canshuur laga qaato male maxaan furaa sitay maxaan furaa qudaar daldalayso iyo xaji qabsi kor bar si socdo male maxaa laga qaadana ملك موت جوري فاروق محوك الدلا واي جوري دكتور جلال وملك موت محوك الدلا جوري او محوك الدلا محوك الدلا ما كان هفته دبك حروف زائد ويا لا واسدات وارم وقر ويا لا لكن ساسكن marka dadkan inay inta ka baxaan dibka khayrkaas walaadad ilaahay si sax ah oo dadnimadu ay gasho diintu ay ogashahay oo sharciga nidaamka dawladnimada uu ogol yahay inay u noolaadaan wuxuu u helaan muhiim waa biyo meel godanay isugu yimaadeen meeshaan deegaankan gobolkan wuxuu ka mid yahay gobolada ama deegaamada oo biyihii meeshii godnay isugu yimaadeen ah oo la soo wada doonto biyaha soo biyo roob gowdo meel la buur waayo meel la dalcad waayo meel la muxuu ahaa waxa ka samaysanto wartaas biyaha loo soo wada aada waa run meeshaan khayrka ilaahay siiyey laakiin khayrkaasi sida kale u bedeli karna dalka meesha ugu horumarsan adeega bulsho ugu fiican meesha le ammaanka ugu fiican meesha le yani infrastructureka iyo maxaan ku rahaa kaabayaasha dhaqaale meesha ugu fiican waana ahaan jira waan u celi karnaa meeshii shalow meeshaas dad iyo dawladnimaa geysay maantana aan geyno heshiiskaas aan dabagalno aan dhaqan gelino caqabadaha uu nagu haayo si aan loola gudbaan intaas kadib deegaamada Soomaaliya maanta ololaa ka socda campaign ka socda oo shabaab lagu diriraay oo dadka deegaanka ay kula diriraayeen waxaan rabaa inaan xuso maanta khiyaarta meeshaan ka hadashay oo dhan dhibka shabaab lama sheegin dhibka shabaab ana noolahay inay dawladnimo iyo meeshaan ka jiri weyso marar badan dawladnimo aan raalli laga ahayna deegaankan ka jiri jirto maamulo aan in badan dad kamid aan raalli ka ahayna jiri jirto laakiin duruufahan hadda jira duruufo inay ka sahlanaayeen laga yaabo marna sax ma ahayn oo muxuu ahay ma ahayn laakiin duruufo marba beeray maray annaga
وحنوله دبك ما أنت الدولة بمدينة وهنا قال هذا أيوة شباب وارون سبارة لقصي وارون محنكو هذا دباتوين يدك محو أيوان وحي لكن هذا قف أنت قرت اللي يقول جدك مرحيس السوسري أما مرحيس حبط الله صار مثل إهانة ده قف البني آدم كان يروح بقي عبسده واحد بليون وورثه وضدك اللي بده الليل خردات كجراهي وخردات جراء مسحم وحسوها عيد مدى odayaal khiyaaro meeshaan fadhina waa ka marqaati 3 sano ka hor ama 2 sano u yaraan ka hor ciidama hal la keeno deegaankan leeyahay xerooyinka tababarka ciidamada lagu tababaray hal la geeyo ha ka mid noqdaan ciidamada deegaankan ilaalinayo joogo oo wax ka daafacayo ha ka mid noqdaan oo shabaabka dalka ka xoreynayo yaan dhahnay waa weynay marar badan waa weynay mar ma aha laba ma aha marqaati leedahay كورس إذا ما الله تببرايو أو كون أسكري أو لسوء أوروري أفر بقول أو كميد إلا يري بيلاها شبه الله هو سد الجنة على جرى إنه كينا ولكن وايد بال لبض بالسد لح بلو كورس ممكن يحير نير على كورس على فتح مكيدة وارون تعيين وحنزرع مكيدة بنا قرب بيلاها تاركود إنه يحط الصبة إنه نهين ونلو شيء وارون بيلاها قاركود انت الله شايف سيد الله قيسنا عدمدي اللي جينا إني كوي شيء وايين ويكين وايين وارون عرفنا مركا مشكلة ده ما انت نهاية التاهي إنا نتآذينا إنا فراغ كفي فيقنو ما نقبعش كل جاي وحقوة الخيرنا على خيرات قبل كان يالله بس كده هو كفرية لكن سيدة أقف النار هاي أن كين لانا بس سيدة أقف النار نكي بارس كلا بيرتيس أسكلا في حوك وهاي استخورتها على قبنا وعلى قد كعنا ككع كوري قال لا مريد ده كل كان كيف واحد بلد دولة هاي الدولة أسكال الإنترال لها بالنا كيف بردت إسلامية هاي البردت إسلامية بدك إسلامية هذا هاي ككع على بها ماشي أنا محوها أما برد دولة أما برد دجان هذا أنت تعبان بها مر وليها والله فينا عدو إنه بوح تعبان الرب شاكو وعبدكور لما dadkaas goboladaas kala baadiyaha yaa ka yimid maracada garab u saaran waa waxa waaye kambiyoon waaye lagdinta oo kambiyoon ku yahay goodaan qabaa nin odaya oo suldaana oo meel joogo u yimiday meeshoo lagu shiraw dhahay goodaan qabaa aniga yaa ila lagdamaayo oo reerkan oo ku jira muxuu yiri waa ninkaan أنا كان سانو ليه وأنتو كيمي وميلهم وكيمي حكم موسى سفريو حال باي كان حكم موسى سفريو ده خليه يقطعوا ده نكو اللي سوق تقطع والله حق اللي بحرق والحرق مراد كذا ما راح يسوي ولا ده عودي يقول لي سوق كان يصوروا سي أنت اللي بحرق ده صباح الضغط سويه وصباحي أفر دم وين وكدي حب ونكي بك حب مسار يامبو يو محوا هاي هنقول له جدة أسألك هلوجيت قاضو ده منكي محبوسة على قد إرادة ده ممكن أنت جيت قاضو دارتي أبورو دارتي إصابة حضو الله سمعه وبدر عن عادي إن أنت هنلاقي قرار أنت هنلاقي وبدر عبيت الانصاصان منكي يا جو وعاطل نقلك السر صدقك والله شيء حالي دارتي وقرار صصاب ويني أو يبقى هالكام والله كام هاي وروا وافي عنها حوجة سيدا لوجا فائدة بدر كان أرجع أسكال قاعدة ولا ورا وتعليل لك جملة ما الله ده حوجة واكنا سيدا لوجا فائدة بدر كان أرجع أسكال فرا مركا أما ما شاهد أولا النقو أما أنت كنت جناو أرجع أسكال قاعدة مركا وحرنا ما شان خير وفجرة خير كفجر سيء خيرك كجرة وحنا صار كنا دولة نمو نظام كلا تمرين دولة الفدرال كأو وحي باندي نقاطي دك الساعة قرط وحلا الحكومة وادك عرم الحكومة بعد يبور يرجع مال الحكومة دبع الحكومة دك السدجان الجوجان إن الحكومان أو تلدي صلاحات واي دولة الفدرال كا وحي يتاجرها كافور قلبنا رأي جاتي كسر يسنتين لكن أيد التحديد هذه اللي سكسي جيجيده أو اللي سكوا كلا ريحه وأنا كان الله ما الله يسين لده
وأنا كاسا أنت إجا من مالي وأديك بحواه بحلي ما ماذا ساعة جيسها وين لضع قاسك وكب حياة جيت جوكس وسينا كنا جوك وسينا لضع اسك درسنا كيف اسمه جيت قاسك كوارا وعدا بكعة سينا فالشبه لضع هوس هدي جوك إساسيان ما حركنا عليه إني حرصدانا قلنا أننا أمام الدولين ورنيك قردرا وانين قردرا ولا قبنا قردرا رالي مكئه قردرا سيدا وقفي عنا كوكا بكرنا وحلاي ولا يعون بيت ماذا حوق مقاسو دولين حوق مقاسو شقينا لكن غير هذا لا يقموك أسو خانجر واسقادنا هدي جوكتو دولين حتى خلق الجروات كامل عربنا maanta Amazon sarkaalkii ugu sareeyay oo maxaa missionka Amazon madaxda ka ay waa kana taliyihii maxaan ku raacay ciidanka Amazon madaxda ka waa kana taliyihii qayb sarka command waa jooga annaga wasiirkeena gaashaan dhiga waa jooga abaanduulihii ciidamada waa jooga saraakiisha kale oo maxaan ku raacay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ka waa jooga meeshaan waxaan isugu nimiday gobolkan dadkiisa waxa ay xaq u leeyihiin oo deganaanshiyo iyo nabad iyo nolol ah inay helaan aan rabnaa inay nabad ku noolaadaan oo barwaaqada ilaahay ay ka faa'iideystaan Soomaaliyana uga faa'iideeyaan aan rabnaa wax kale oo ajenda ah oo maxaa ay magaciisi amala dhulkan waa barwaaqo dadku ku nool waa dad aad iyo aad faqri u ah waxaana ay faqri u yihiin waxa waaye nabad la'aan iyo dawlad la'aan فقط أما دولتي وحوجي دولة حوجي ده محكينا شباب وكو مدة كسوها تنسى الريحة واسعين جيساوي ناس أولاد جيساك بحناوة وران أقران أن أقبلنا ورا اليوم قف كفر ديري أو على قبنا واسمه تجينا أديك ديري هتجوجا دينا لكن أن أقرانه أن أقبلنا أن احترامنا أن قدرين كي زائد هو احترام كاس يحارك يدقنك النظام الصومالي لماذا يشروع لي قوانينته تكدون انه قلنا ولا هذا الربط جوغا لها ما اللي يجيلا ولا علينا لكن انا اقبلنا ان سولنا ورانا ان سو دوينا ان حشمين odayaasha dawladnimada hal xishmeen ku odayaasha dhaqanka ee deegaanka ee beeraha ee dal walba mas'uulka uga dhigatay danaheeda inuu ka turjumo dadka ayagana ilaaliyo dadkana ka ilaaliyo asagana warkiisa hal yeeyo annaguna waa maanta waa nimiday waa joogayna waana ku soo noqnoqonayna mushkiladeena waa intaas waxba laga kala sheegtay ciidamada waxaan jeclaan lahay odayaashu mar inta baxaan ciidamada laftooda inta u tagaan dhex fadhiisaan igaarteeni adiga maxaa idinku dhacay inta ka jirintiin inta ayaga la sidoo leeyahay wali lama dhihin in la yiraahdo odayaashan dhaqanka wiilashii le waaye kuwa beex gacmeed meel kale looga keeno maahane إلى ما علم بقى بحدين أدح في الستين أو بحدين هاي إجاتين ورموا بيسوي واحد فيه أنا جوادح ما أنا تجي إذا ما تجي خليه هالشيء وزير ردي وحي إلى السعودية ولا إسكت تجمع له كل جوده أدح في الستين وح أيضا الشيء جايين وحو آدي بالبضوات وحنون بضوات ماشى مركي محاكو جروات ماشى وحاكو جرا أسكرت للشيء هاي حقوق الدولة الصومالية ما وضع حما أسكري حما كجرو أسكر حما كجرو لكن أنا جام حقوق سميسنا كيف حما إن أو محاكو أنا قدرنا مقعي مقاط يا رضا سميسنا بيالها قبائل كم حيس كجرا دور بر أروقها إنه مقشين وأنا حقيقة أنا محوها المباران دل كان كأجري دجانا ده محوها قبل كشر لذا hoose degmo iyo tuulo aniga aan joogsanin oo dadkeena aan wareysanin dib ilaa isticmaalka laga soo bilaabo mulbeeraadkan iyo dibkii taariikhda uu soo maray tuulo aan tigno soo wareysan mala waa ogahay degmo kasta taariikhdeeda iyo tuulo kasta taariikhdeeda iyo waxay soo martay aan ogahay wixii hadda jirana waaba joognaa waaba dhex taaganahay waaba joognaa oo hadda dibka jirana hadda waaba dhex taaganahay waa joognaa waa run dhibaa jira laakiin waxaan rabnaa in la ogaado in bal adika dhinac kale كلنا مر إلى دقيقتين إذا ماذا ما وضع حما هو حنحنا كجرا إن انقبويني وضعيف النماء لنا لكن قبائل مركي ازدروا عين محا بيتهم محاو كجرجر محاو كجرا نما صبحا ننجلي
لما صباحي قرقي سوقاتي أما ورن كيس توري جمو فلاتي نمو دلي دولة ممكن حوجنته الناس المامور إن نعم كجرو محله ترجمة فعلك من قاعد نكون بيجلئه ونك مواطن الدلي واي مو على سوقفته شرعي هالهرجي شرعي وحقب هالوقاض شكيس ماشي كل ما لكن ويا عند أبو حنفي محوا قاتل كسيدة سبحان رير هبل يدلينا وده رير قرعة رير قنص عدلي رير قرعة حدانا يعني نقول رير قنص حكسوا أرسل محوا جبتين نقول مقشوا والله بحا موريان بنتي ومحافظة دراجة يقاب درجة يوحى أو عنا يوحى كله ليسوا كله ليات باع النقدية أو واحد لي شيخ عالم هو كنت بضد وآخرنا مساجد فضيه أنا سجله فوض أكتر أو ضد داوينا أو المية يرو شو ماي محوا داوينا يا للجله هو إنجنير أو محوا أما كنال مالها لا يقضي يرجوي أما وضنا الكتيسة يا للجله قضينا بدونه ورئيسنا بدون وآيا للجله محل الجله محانا مركا وحواي انت انجونا رير هبل دلي تبكاس ما كبخين ورنيكي نين دلي واتوك وانين خائنه او غعان كديغلا وركي اسباره دغتي واتوك مغعاس ان u bixin waa isbaariste tuug ah oo Allah iyo rasuulka furtay reen hebelaad dilay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka booliska Soomaaliyeed gaadhay laana waxaan aaminsanahay maanta meeshan go'aan lagu gaaray ciidamadii oo deegaanka in la dhiso oo la tababaro la qalabeeyo amniga deegaanada ay isku kadhaxay go'aankaas la gaaray waa la waqtiyay dada mas'uuliyadaas qaaday oo lagu ogyahay maanta shiraan galna markaan nimidba dada mas'uuliyadaas lagu ogyahay xamar waa ku gaari karnaa go'aanka waxaan soo qaadnay shabeellada hoose u keenay iyo koonfur galbeed dhexdeeda waxay tahay mas'uul si gaar ah inay deegaankan ay u khusayso waxaan ilaahay ka barya oo aan rajayna maalin maalmaha kamid ah intaan soo noqdo inaan la idhin wiilashii dawladda noo soo bartay deegaankan laga keenay dhibkaan ay nagu hayaan isbaara xaq u taalo gabaray kufsadeen nin madax hebel oo madax ay dileen maamulkii deegaanka ay amarkiisa diideen aan la soo gurmaday maamulkii waa warkiisa waa la diiday gudoomiye degmada meelaha lagu xirtay waa la haystaa ana loo soo orday inaan nala dhihi doonin maalin maalmaha kamid ah rajayna laakiin waxaan idin ballan qaadaynaa wiilashiina amniga deegaankan mas'uuliyadiisa in lagu wareejiyo qabtaan maxay ugu qabanayeen waajib amni oo badan intuu ka bilaabana la dagaalanka shabaab oo ka bilaabana la dagaalanka shabaab oo ka bilaabana wuxuu ku soo dhamaana islaamka jidka maris in la qashqashaadin cunugta yartaa oo gabadha yartaa oo ku gashin loo dhiibay oo gaaska soo gadliyo ku gashin in laga qaadanin meeshaas uu ku soo dhamaana la dagaalanka shabaab iyo dalka in laga xoreeyo ma ka soo bilaabana inta u dhaxayso dawladda tababar iyo qalab waxay haysatay heli karto jeedkiina waa la rabaa ila ka bishay waa la sheegay 6 biloodaan damaanad qaaday ka badanna waa la damaanad qaadaa al-shabaab maxay ku noolyihiin dawladda federaalka bay ku noolyihiin dekada muqdisho cashuurta laga qaadmay ku noolyihiin dadkaanay ku noolyihiin iyo deeqood al-shabaab aan ka ceshana deeqa kan amniga noo sugaayo oo dadaalka noo sugaayo oo nadiifka ah oo dadkii ahaanayno qoorta ka goyno jidku garbaashayno qaab darro gabdhaha aan naagaha aan ragga ka furanaynin oo duurka aan la maraynin kaas aan muxuu ahay aan siina baasada waa laga yaabaa muddo yar inaan dib culays badan aan ku galno laakiin waa ka gudbayna cabsida saddex nimo shabaab saddexdaa nimaa shabaab joogto tuulada la dhahayo tuulo ah 2,000 oo qof ay ku nooshaa oo saddexan ay xukumayso war ma dhaqan ma shabaab saasay dalka ku haystaan saddex afar shan ay dalka ku haystaan maalintay meer inay galaan rabaan carrada dibdeeda meel walba inta iska habar wacdaan isku yimaadeen meesha isla galaan markay dhamaatana waa kala tagaan nin walba saddexdii tuuladii oo saddexda ku ahayn xukumayeen dib ugu laabtaan dalka waxaan lagu haystaa waa qaab darradaas annaga isqaabayna aan isqaabayno waxaa soo hartay waxaan rabaa ciidan inaan isla fahamno ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed soo ku samaysmay
dalkan waad ogtihiin shabaabaa daba iyo dacal haystay dawladdii transitionka naga horeysa waa ogtihiin xamar 6 degmo ka tirsanaa mar dawladda dhan ay ku soo hartay 6 degmo bis inay maamusho meeshaas maalintaas shabaab yaa bur carraca ku tuuri karay joogtay nin walba meesha uu joogo meel asaa haysta dadka jooga qadar uma lahayn inay shabaab la dirraan meelana dadka jooga waa dhaqdhaqaaqeen inay la dirraan karin meel kasta ninka jooga shabaab kala jira hal dirraan xamara laga soo sameeyey bay iyo bakool yaa laga sameeyey waxaa laga sameeyey muxuu ahay meel walba qabiil deegaan kastoo la tagana deegaankan aawey 100 wiilaa qabaa haddii la yidhaahdo 100 wiilo 100 qabiil ka timid ma imaanaysee waxaa imaanay 70 50 60 hal qabiila iyo 10 hal qabiila iyo 5 hal qabiila iyo 20 hal qabiila imaanay marka qabiila mar walba meesha u badana laakiin waxaana laga rabo waxay tahay inaan ciidamada intaas ku geeyo fursad umaynaan helin ciidankii haddaan zero ka bilaabayna hay hal la qaybiyo gobolada loo qaybiyo gobol hebel intaasoo ciidana laga rabaa 1000 askariya laga rabaa shabeellada hoose kun ma laga meeqa degmo waay 8 degmo waa degmo kasta 100 askari laga rabaa in la yiraahdo ma sida saxda ah ma fursadaas ma helin waxaan helnay wiilal Soomaaliyeed oo la dhaqaajiyo qoryahooda qaatay qaar badan ay dhinteen qaar kale wali ay dhimanayaan waatana meeshaan muxuu ahaay awdeed ma mubaarak dagaalkii oo u dambeeyay ayaan axmed sibtay 17 wiil oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ku dhimatay 11 kamid ah isku jufay ahay qaraabo hoose ahay 11 kamid meel halkaas oo shabeellada dhexe ka tirsan 18 wiil ku dhimatay dagaal oo shabaab ay dhaxmar 18 wiil 16 kamid ah isku jufa noqotay shabaab la dhowr iyo 20 ay ka dileen isla jufadaas ay ayagana noqdeen maalintaas halkaas jufo 40 wiil ka dhimatay in qiyaas adiga 18 wiil oo isku jufa ilma adeer ah dhimatay kaas marka tuubo ah isbaaristo ah kan ay maandheena magacaas ma u bixinayna maalintaan tagay muxuu ahaa meesha la yiraahdo awdeed iyo mar dhulkaan soo maray gabaral ii keenay oo asay u saaran tahay laba cunug oo yar yar wada min sarkaal ahay oo gabadha qaba meesha ku dhintay waxaa la ii keenay oo la ii soo sawiray dhufayska uu ku jiray oo dhiiggiisii meesha u daadsan yahay iyo kiintaal xabada ah oo meesha ku daadsan soo u dagaalamay ilaa dhufayska loogu yimaado lagu dilo meesha ku jira ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsanay tuubo waa isbaaristo waa sano waa kaas oo ahay deegaankan uma dhalanin inaan dhahno macquul ma aha wiilashan aad sheegaysaan maalintii la keenay deegaankan shabaab ah xor ma ahayn war hadda aan isku darsanno kuwiina keena kuwana lagu daro kuwa kalena dhul kala aan ka keenno kuwana aan geeyno ciidan xoog dalka Soomaaliyeed ku noqdaan booliis maahano booliis adka iskale degmo kasta booliiskeeda familiska jooga wiilashooda waay oo dukaankiisii iyo maqaayadiisii iyo beertiisii iyo hashiisii iyo saciisii ay joogaan deegaanka in hebel la dhahayo waayo booliis xoogga dalka Soomaaliyeed ku darsada ciidan geeska xagga Soomaaliya la geeyna geeska kalena waa la geeyna koox kalena waa la geeyna marka waxaan rabnaa arrinta waa saas arrinta isbaarada cudurdaar ma leh isbaaro meel cudurdaar ku leedahay ma leh marqaatiyaad ka tihiin waa joogtiin buundada afgooye iyo tixteeda inta ku dhaxaysahay 19 wiila 3 maalmood gudood lagu dilay oo isbaaro jidka u tiil inta carareen qaarkood la daba kacay oo duurka looga daba tagay nin isbaaro dhigtay nagama tirsana idoo dhaafayna ma leh haddii dadka qaarkiis qabaan isbaarada wuxuu u dhigtay waa qabiil kale markiisa hore meeshuu ka yimid hadduu qabiilkiisa ka yimid meeshaasuu isbaarada ku dhigi jiray inta kuma bilaabay isbaaristu waa isbaarist nin khamri cabo oo umburyaa ka noqdo meel kale hadduu taga khamriga ma dhaafa war ninka isbaaristaad arkaysin meeshii kale ka yimid isbaaristu ku ahay isbaarista waaye aan qabanno aan la dirirno aan joojino waa run eedda mas-uuliyadda meesha ugu sarraysa meesha ugu hooseysa leenahay si gaara saraakiisha ciidanka madaxda u ah eedda waa qabataa eedda asaa mas-uuliyadiisa waxay ahayd askarigaasa eed mas-uuliyadiisa inuu ilaaliyo hadduu ilaali waayo eedda way qabataa mas-uuliyaddana waa leeyahay maamaa askartaan ku maamaahi jirtay askari xun ma jira sarkaal xunaa jira askariga wixii laga dhigo noqona
marka arrimahaas oo dhan guddiyaan u sameynay saraakiil amisoona saraakiil maxaa ku yidhaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed booliiska soomaaliyeed booliiska amisom hay-adaha amniga ee dowlad goboleedka koonfur galbeed isugu jiro berri shirka ugu horreeyay galayaan sida ay u howlgalayeen inoo keenayo kana midaan noqonaynaa annagana howlgalkaasaan kula jirnaa deegaankaana waa kusoo noqnoqonaynaa waana imaanaynaa waana waxaynu waxaan rabnaa odayaasheenna sharafta badanna ayagoo ordaayo wiilkaan maxaa loo qabtay kan maxaa loo waxeeyey kii maxaa dad cusub oo malaa'ig ma cirka keenayna wiil kastoo soomaaliya qabiil waayo ama hargeysa aan ka keenno ama kismaayo ha ka yimaado ama xamar ka yimaado afgooy ha laga keeno qabiil un waayo midaan qabiil ahayno garas laga soo maroojii maa jiro aan marka dabeecad aan isticmaalno wiil un baanan amniga inaan ku sugnan rabnaa marka dadka yaanan qabiilaynin askar haddaan ka dhigno waa militariga aan dhahno waa booliiska aan dhahno waa muxuu ahay daraawiishtii aan dhahno magacyada ay leeyihiin aan u bixino kan xun ay ku dhex jirana maalin walba midaan ka bixinaynaa waana noo wada ficnaanaya laakiin arrintaas inaan u wada istaagnaan u baahana askartaan meesha joogtaahi dhiigooday keeneen meeshaan qaar badanaa ku dhammaaday qaar badanaa ku dhaawacmoo ku curyaanay qaar badanaa weli taagan oo inay naftooda waa qaab darra iyo maamul xumo iyo isdabambar haddou galay waa la saxaa kuwa deegaanka hadday ka maqan yihiin waa la keenaa nidaamkii quruxda ay leedahay hadda uu suldaanka uu ka hadlaayay waxa oo ka dhacay maxaan ku afgooy waxa annagaa rabna saas waay khalaas qoryooley sorry maxaan dhaha qoryooley raalli ahad qoryooley waxa ka dhacay annaga saas waaye waxa wax ugu fiicanaan rabi karnaaba waa saas degmadaani amnigeeda mas-uuliyaddiisa ayagaa qaaday shabaabna ayagaa iska raacdaysay tuugxumahana ayagaa iska celisay in la yidhaahdo waxa wax ugu fiican oon maqli lahayn waayo taasaan meeshaan maanta u nimiday mabaadida iyo spiritka aan meesha maanta la nimiday waa kaas waana ku shaqaynayna anagashada far isku fiiq waxba manoo taraay far isku fiiq iyo reer hebelow iyo aniga madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya aan ahay madaxweynaha reer gaarana ma ihi waxna gaarana ma ihi reerna ima dooran meeshaan ima kaysan ninka oo suldaanka uu sheegaayey raalli ninka suldaanka uu sheegaayo ee beerta lada geliyo tuug waaye tuug oo burcada waaye kan isbaarada dhigta tuug waaye saan isay qabanayna aan u midowno laakiin haddaan reer ka dhigno reerku waa difaacaya tuuggaasay difaacaya reer hebel haddii la yidhaaho magacayna maxaa loo soo qaaday nin walba qalabkiisa soo qaadana reer hebel war maya tuuggaan aan ahay tuuggaan muxuu ahay hebel la yidhaah tuuggaan hebel la yidhaahdo waaye waxaa muxuu ahay awxey gacan ku dhiglaan hebel la yidhaah waaye waxa oo muxuu ahay qofka dilay aan dembiga walaa taziru waasiratu wisra ukhra dembiga waa shaksi aan shaksiyeyno aan ka dhaafno diyadaada taana u dhiibayna annaga maxaa naga galay yaanan gaarsiinin hoy meeshaas qofka dembiga u gala asaa galay asaa ka mas-uula ha la wadaagin ha siinin adiga sharaftaada iyo qadarintaada iyo aakhiradaada ha siinin nin maxaan ku idhahday gacan ku dhiiglaa ama tuug oo qaabdan meeshaas haddaan soo gaarno bisaynka noocaas haddaan soo gaarno waa marka keliya aan ka adkaan karno dad kale haddii kale waa naga adkaanayiin weligood waa naga adkaanayn 25 sano waqti yar ma ah waxay nooga adkaadeenna waa farsamadooda aan la garanno adeer hebelow aniga wiila xabad iiga fakatay ma og tahay anigoo saasa war ma soo disho ma dhinta xagga istaag war aaway baa loo yid hala qabto nin dilo wuxuu mudan yahay kama may ahayd hala qiro kama inay tahay kama waxbay leedahay kas ma u dilay hala qiro kas waxay leedahay laakiin hadde ticket igu gooya hal ii dhoofiyo wiilkaani muxuu ahay hal igu dir Nairobi ama xamar loo dir kiraa loo dir in hadda wiilkii waa naga baxsaday gacan kuma hayna reer adeer hebelow hanala xaalo war mid kale oo fiican oo adiga adeer aad u tahay rahan u dhiibo haysa rahanaad u dhiibo haysa waa la dilaa beriyaa la dilaa kan aad dhoofisay ee dadka soo dilay mid ka fiican oo ka qiimo badan waan naqaanaa reer hebel nin meel laga dilaa meesha ugu xanuunka badan yaa ugu xanuun badan oo weligood ayna ka samri karin haddii la dilaa dhaha midka dadka ugu qiimo badanaa la dilaa haddaanan ka imaanin maskaxdeena ra'yigaas waana laga adkaanaa isbaariistu waa naga adkaanaa kallada beerta daajinaayo waa naga adkaanaa shabaabku waa naga adkaanaa
أنا قال أمضى أن حقها أو الجلسة عن قرن أن جوجينو أن كأب كان كاس حن أن قمتك الدار ملك مقع إليهن كاس كان كديجل توب برعب مقعدة إليهن غير هذا إيو إنا الشيخ هبل إيو إنا سلطان هبل إيو ملعن مقعد ملعن توجي على هاي توجي جامعة هاي توجي على سوق هاي توجي عبدو مقعد سوليه مقعد وليه هم بحنا تاسوا مدرسة عربنا لقب اللابو بالري جد عن شغلي أو ما من قبلك وكتب سي هاي الشري ليه حمر يشرك ليه شقادة إيه قبنا عين سيد الله شقينا هاي ضدك اللي تببراي ميراها اللي تببراي تراد اللي تببراي إيوه إسبارون كان سيد الله دقال مايو إيوه هشيس كاس تقلقلين تيسي سيد أضياش الله غلا شقينا هاي بروجرام كاسي نوصل سمينا سبتي أحد اثنين واسم جوجنا أما أبقوا جوجنا أما مركان جوجنا أما قليل جوجنا أما دافير جوجنا مسكالة هارينو محوها سودان إبرو ساكي بيدبك سعروجي ما ممكن يدول بسيدو كشقيها يأسل يا خيارة أولا منها لكن محرمنا سوى 30 تعيش قيبس قارنا ما ملسد عن نجران قارنا دوك سيد النظام بضيلة هاي حكرا شقايا مركا لآدي آدا أمها سنتهين عيدا كلا بسايا عيدا ديغان ودقمك استطاع وانا اللي يلا دي اللي راي heshiiskii maanta meeshaan laga akhriyo qodobadiisa labadaas beelood waxaan marti uga nahay in ay daacad ka noqdaan dhaqangelintiisa haddii kale inaan awoodda inta ka qaadano aan soconno oon wax heshiiska dhaqangelino qiimo badan oo noo faco ayagu hadday dhaqaaqaan heshiiskaas waxaan aaminsanahay inuu ku dhaqangalaayo qiimo yar inuu ku dhaqangalaayo dad badan oo la dilin dad badan oo la xirxirin problem badan oo dhicin inuu ku dhaqangalayaan aaminsanahay لكن هذين أي قرب سي ويانا ودقائق ويانا أنك نصوم متيسته ضد بدل الحرة هو أو عن مبنين حرق والحرة هو مبنين والحرة هذا هو نحيات كراكسي إيماني قيم بدل موقع هشيس كثير لكن أدينك هذا الاستاذان هشيس كقيم يرو موقع واختيارنا ونوفضها أنا قرأ أنت قبت كان يعصى بها إذا كان أنت هلا بيقول هو أخوي سحب ما أنت هلا قبل حية بل وكر على كان إلى تلانينا أنا أقول عن يالنا دي ألينا بارك الله فيكم سيد الله شاقواي وأسوصا نقنقنينا لكن أن أجيسنه وحا أن ذكرنا مضيين إلى القبرنا أنت فرد مسؤولية دي أنت سارن تهي أن أجيسنه أن قبرنا دولة فدرال كان وائدا ما بقيت كم مقراني سوى إذن الجوبتا شرف حسن عليا إلى إذن كلا هارمين إن شاء الله لكن لأنتم وعبق بكر قرب فينا الله أي